نفسيه وحنا هاي نفسيه waxaan ku soo dhawaynayaa mugaas macalin xasan shiina inuu taariikhda uu suldaanka si kooban u soo dhigay si faahfaahsan oo aad u fiican u soo dhigo ayaan ku soo dhawaynayaa waa ku soo dhawow kadib halkaan waxaanu ku eegi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo ujeedooyinka halkaan isku nimid munaasabadda xuska sanadguurada kontraad ee ka soo wareegtay markii la dilay suldaan robo suldaan xaaji xasan gabaaba islamarkaana la duubay suldaan maxamed suldaan xasan gabaaba oo ahaa suldaanka maanta noo talinaya intaanan taariikhda dhex galin waxaa yara rabaa inay yara taabto garre waxa la yidhaahdo waxaan isku dayi doonaa inaan soo koobo insha allahu tacaala bulshadii garre waxa ay ka mid ahayd qowmiyadaha qurumaha shucuubaha iyo qabaylada kala gidsan oo degan wadamada geeska iyo bariga qaaradda afrika jugraafi ahaan sidaa qaalibku waxay isku xidhaa wadamada etoobiya kenya iyo soomaaliya wadamada dhaca bartamaha iyo galbeedka qaaradda afrikaana sida wadamada jaad mali niger iyo kuwa kaleba waa ay degaan magacii garre berii hore magacii garre iska dhaafa waqtiga ka faydasanayna iska dhaafa magacii garre berihii hore waxaa loo yaqiinay karre waxay ahaayeen luqad u gaar ah oo la yidhaahdo luqadii karre luqadaas iyo magacaas waxaa ila iminka lagaga dhaqmaa xagga iyo dhinaca garre koonfarka oo degan soomaaliya gaaraan gobolka shabeellada hoose garre intii ka horreysay nidaamka dowladnimo waxaa maamul jiray salaadiin nabadoono magac leh oo mid walba aan ku eegi doono mawduuceena soo socda waxay lahaayeen dhaqaano iyo xeerar iyaga u gaara xeerarkaas ay dejin jireen odayaal aan waxna qori karin waxna akhriyi karin xeerarkaas oo aad looga qadariyo bulshadii garre dhexdeeda hadday noqon lahayd xagga xukunada kala duwan sida guurka dhaxalka naxariista isqadarinta ma kala qaadashadii waxyaabooka kaleetaba garre waxay ka kooban tahay laba laamood oo waaweyn oo asal u ah qiimaha kale garaha intaanan gelin taariikh nololeedka suldaan robo suldaan xasan gabaaba waxaanu munaasabadan ku xusi doonaa qaar ka mid a hogaamiyaashii dhaqanka ee soo maray ama soo hogaamin jiray aabyaasheen iyo awoyaasheenna waxaan tusaale usoo qaadan karnaa sida suldaanku soo dhigay hiilabtura waxaan ku qiyaasnay in bulshadii garre uu soo xukumi jiray qiyaastii qarnigii 15aad waxaan ka xasuusanna oo kale in qarnigiisii ay jireen isku dhacyo ka dhahaysay bulshadii garraha iyo qabaylada kale dariskaas lamarkaana jiray qax ama barac iyo barakac kaleeto waxaa ku xigay oo kale baran karo inay tahay bartamaha etoobiya dadkaasoo ilaada tilmaantooda ay naga maqan tahay qaybta shanaad waddanka ayay ku sii hareen dabadeedna ay isku biireen kuwii ugu soo laabtay dalka oo aan ku magacoonay galilibin halkaas oo uu ku hogaamin jiray odigii la oran jiray geedi gabaaba waxaa ku xigay oo kaleeto 3 geesiyaal oo cabdisade la dhihi jiray oo si wadijira bulshadii garre xukumi jireen kuwaasoo la kala oran jiray cabdimaambo salaale cabdi gunayr baaye cabdi gudaaburo waxaa ku xigay odigii caanka ahaa la oran jiray cali daayo maambo oo dhinaca galbeed waddanka maanta etoobiya loo yaqaano garra kasii xukumay si loo joojiyo isku dhacyada qabaylada dariska iyo garra waxaa u dejiye oo kale xeer aad u adag oo gaarsiisnaa ilaa heer dil sidoo kale waqtigiisa dhinaca bari dhulka maanta madheera loo yaqaano waxaa ka talin jiray shabacaliyo oosna uu leeyahay golihiisa waxaa kaloo xasuusan odigii la oran jiray cali cabdi oo bedelay cali daayo cali cabdi xilligiisa waxaa laga xasuustaa waqti xasiloon oo nabadda lagu naaloon jiray halkaa dhinaca barina uu ka talin jiray aw-eedin shabba oo bedelay aabbihiisii shabacaliyo iyo odayaal kaleeto gabaaba maxamed oo bedelay cali cabdi waxa uu ku dhashay meesha la yidhahdo harward oo ka tirsan degmada mubaarak oo hoos tagaysa gobolka dhiban ee dowladeenka soomaalida etoobiya bartamii qarnigii 18aad ayuu dhashay suldaan gabaaba maxamed waxa uu bulshadii garre hogaamin jiray 48 sanadood xukun dhaqameedkiis waxa uu gaarsiisan dhammaan deegaankii garre haddii laga reebo deegaankii kaleeto ee garre koonfarka iyo kuwa afrikada kale ku tilmaanay sidoo kale gabaaba xukunkiis waxa uu la kowsaday
imaashii gumaysigii caddaanka ahaa ee ku soo duulay dalka iyo imaashihii boqortooyadii milig isku fidinaysay deegaankii garre iyo deegaanadii kaleta deriska ahaa kadib xukuumaddii cadaadiska ahayd ee boqortooyada ingiriisku ay ku soo rogtay anshuur ama koodi wax la yidhaahdo waa uu soo taagay qori caradi ayuu qori caradi ayuu soo taagay ingiriiska okay arrintu si kastaba ha ahaatee labada wadanba waxa uu ka noqday qof caan ah oo galay diiwaanka boqortooyada ingiriiska ee boqortooyada Ethiopia gabaaba xilligiisa waxa kale oo aan xasuusan karnaa sanadku markuu ahaa 1922 kadib markii qowmiyadaha garraha iyo booratu dagaal ku dhacmay gaarka degmada Mooyaale isla markaana ay ku leeyihiin dad labada dhinacba ka tirsan si colaada loo joojiyay waxa uu heshiis la sameeyay hogaamiye dhaqameedkii booratu la dhihi jiray Kosigeedo heshiiskaas oo nuqul ka mid ah oo ay ku yaalin shaabadaha ingiriiska iyo Ethiopia aan gacanta ku hayno waxa labada dhinacba garwaday ka noqday wakiiladii mustacmaraha ingiriiska iyo kan Ethiopia oo labadoodu ay fadhiyeen labada Mooyaale xilligaas gabaaba ka soo kor waxaa jiray oo kale salaadiin iyo diyaal magac leh iyo nabadoono fara badan oo garraha u talin jiray kuwaas oo ay ka mid yihiin Adiya Baaro Mahad Hussein Khalid Mahad Guyo Misingo Ali Buke iyo kuwa kaleeto fara badan oo magacyadooda aan soo xusin xilligii gabaaba waxaa jiray oo kaleeto dhinaca diinta Sayyid Ali Abdulnuur oo fadhigiisu yahay dhinaca Mandheera aakhirkii gabaaba waxaa xukunka ka dhacay wiilkiisii Xasan Gabaaba Sultan Xasan Gabaaba waxa uu ku dhashay meesha la yiraahdo Wayamgalgal oo hadda ka tirsan degmada Mubarak sanadku markuu ahaa 1896 bulshooyinkii garra waxa uu hogaamin jiray ilaa sanadku markuu ahaa 1959 si aabihiisa oo kaleeto waxa uu aad u necbaa isla markaana uu ka soo horjeeday xukuumadihii gumaysigii ingiriiska wax badan ayuu taladii ingiriiska ka dhiga fadhiistay dabadeed ingiriisku muddo 5 sano ah waxa uu ku xiray magaalada Marsabit oo ku taala waddanka Kenya markii la xadeynayay xuduudii ingiriiska iyo Ethiopia oo ahayd xuduudda maanta ka dhaxaysa Ethiopia Kenya markii la soo gaaray agagaarka Banas iyo Mubarak inta ka dhaxaysa ingiriisku waxa uu ku dooday in la mariyo meesha la yiraahdo Gaad oo qiyaastii hadda 180 kilomitir gudaha u jirta Ethiopia way ka diiday aakhirkii labadii dhinacba waxay qabsadeen Sultan Xasan Gabaaba inuu garu qaado markii uu ka dhageystay labada dhinacba ingiriiska iyo Ethiopia aaradoodii waxa uu ku dhawaaqay oo yiri gaay ma jirto rako gaaya mooye halkaas oo dhul ballaaran oo ingiriis noqon lahaa uu raaciyay Ethiopia Sultan Xasan Gabaaba sidoo kale waxa uu ka mid noqday golihii baarlamaanka ee boqortooyada Haile Selassie inkastoo kalsooni lagu siiyay xilkaas markii hore haddana markii uu bilowday xarakaadkii gobonnimo ee ka jiray koonfurta iyo waqooyiga jamhuuriyadda Soomaaliya oo dad badan oo Soomaali Ethiopiana la xasuuqay deegaankoodii iyo guryahoodiina laga barakiciyay ayaa isagoo Mooyaale ku sugan Haile Selassie iyo golihiisa wasiiradu ay ku tashteen in laga dhigo taqlaygizaad ama loo dhigo koonfurta Ethiopia oo dhanba Xasan Gabaaba balse la isku qabsaday dhalashadiisa waxaa la go'aamiyey in la weydiiyo dhalashadiisa haddii uu Soomaali baanaha u yiraahdo la dilo haddii kale tan xilka loo dhiibo isagoo Mooyaale jooga ayaa Addis loogu yeeray kadib waxa uu ka warhelay saaxiibadiisii arrintii dilka inay ka horeyso markii la weydiiyay dhalashadiisa isagoo og in la dili doono ayuu dhalashadiisii Soomaalinimada u bareeray dabeedna waa la dilay sanadku markuu ahaa 1959 muddadii 33 sannadood ee uu xukumayay bulshadii garre waxaa la shaqaynayay salaadiin iyo odayaal magac leh oo aad looga dambeeyo kuwaas oo ay ka mid yihiin Ibrahim Aliyow Daqa Aliyow Qaliti Awiya Mammo Qalla Sano Gabo Ali Kiyato iyo kuwa kaleeto fara badan soo koobi karin kuwa badanna way jiraan oo aan soo koobi waay xilligiisa dhinaca bari qiibo ka mid ah gobolka Gedo Soomaaliya iyo qiitaas oo dhan waxa hogaamin jiray odaygii magaca lahaa oo la oran jiray ugaas Ali Dandable in badan lagu yaqaanay inuu yahay geesigii garre oo ku noolaa xagga koonfurta iyo bariga dhulkan garraha diin laga soo reebo dhinaca garre koonfurka intii uu noolaa bulshadii garraha waxa uu ku hogaamin jiray dhaqan toosan oo ku saleysan sinaan iyo cadaalad aabihiisa iyo kuwii ka horreeyay oo dhanna ay ku dhaqmi jireen dilkii Sultan Xasan Gabaaba iyo cadaadis qowmiyadeedkii boqortooyada Haile Selassie waxaa ka dhashay aas-aaskii iyo halgankii qadhaadha ee lagala soo horjeeday boqortooyada
هل كاس أو كامل جنرال علي جبابة يوقع يريسي حاج حسن يريسي عبد الله حاج حسن جبابة أوها ويك سلطان حاج حسن جبابه لكلي كذب هل كاس وحى كسر بيرو كلته جنرال حسن حسين عبد حسن جورو كورنيل عبد الله جمال حسن أو لبدو ذي كسر وريجين بنا على قناة جوجل كأين في إحلى قصودي iyo rag kale ay ka mid yihiin aadan alla cali iyo kuwa kaleeto fara badan dhammaantooda loo naxariiso suldaan xaaji xasan gabaaba waxaa bedelay wiilkiisi suldaan robow suldaan xasan gabaaba okay suldaan robow suldaan xasan gabaaba maanta intaan u fadhino waxa uu ku dhashay meesha la yidhaahdo joqorsha oo ka tirsan degmada hudad ee dowlad deegaanka soomaalida sanadku markuu 1927 وعلى عليه مساري أما الدوبي سنتكم مركوا أبو سجال بقول سجال يكنتوا كمركي أبي سيل الدري سلطان روما وسيدا أنتوا كسر شيء حين لقيسي واحد من دقال كسودي دقال جماعة وهو قامين جري أدير كيسي جنرال علي جبابا جماعة أسولورن جري قال سيدام ومركي دم بيسكو بدشة جماعة قرية الصومالي أبو كده قال لبسه قبول هذا بالي إيو سيدام هلكا قبول هذا إن وكسودي هلكا كلا بدها waxaa kaloo garab socday dagaallo iyo isku dhacyo qowmiyadeed oo ay ka dambeysay boqortooyadii Hayle Silaase iyo xasuuqii shacabkeena ay u geysanayeen ciidamadii boqortooyada Hayle Silaase tusaale waxaanu soo qaadan karnaa xasuuqii loo geystay 9 xubnood oo ay ka mid yihiin Cabdullaahi Kadeel iyo Cabdikariim sanadku markuu 1962 laguna laayay duma سلطان روما waxaa lagu xasuusan karaa in uu yahay boqor geesi ah oo naftiisa sharaftiisa dhiiggiisa iyo diintiisa u huray bulshadii gabe waxaa lagu tilmaami karaa in uu ku sifoobay sinaan iyo cadaalad iyo dhaqan wanaagsan oo uu garab ku hogaamin jiray isagoo aad u qadariya dariskiisa aakhirkii Suldaan Robo mu'aamarad Hayle Silaase ka dambeeyay ayaa lagu dilay taariikhdu markay واسرتي كونترات ويا كسر ويا ما تدان جوجل ويا أفرتي بيشي نوفمبر سنة مركوا أكون سجال بقول أفري ولا عدكي الله نعلم توميش الإرادة قال خاتم بيجي وكتسا إسلا دقمة داود جودهان بلشتي قبل وحاو قامين جري مدولة سنة دورة سيدا بياشي سوكله وحاوليه قولي سجالتها ليا وكاكوبان جري بيلا قرها سلطان روبو وحاحلك كذا عليه وقيل قلاكيسي سلطان حاج محمد سلطان حسن جبابا سنة مركوا أفرتي بشي لبي تونات فسرال بقول أفري لحدنكي سلطان محمد سلطان حسن جبابا وحاو كل شيء مش لي ردوار فرد وكترسان القر وهوستا جيسا دقمدا موجة لسنة مركوا فسرال بقول لبي أفرتنكي إلك سلطان نمدا وحالو على مساري إسرائيل لبي لما تنجير تردو مركاي أفرتي بشي لبي تونات سنة مركوا فسرال بقول أفري لحدنكي سلطان محمد أمان تركوسي نصر الدولة سي كونترات كسر وريتم مركي على مساري أما الدولة وحا أود على دباتون كيفوش هما ولوجي سنجري بولشدي كرس لما كان لابد لك أبيسي ولا كيسا ولبا وحا ولكم ما وقت يزيد أوجستين دباتون كي بولشدا كان لبوهاي وأن كسر شيء يهرج كي لجلس ورجلي عدادسك أو سيدو كان سيح أوجستين اللي يصير وحا كسر كوريو كلتو إذا ندتي كسر بولشاي نحدكي إلى سددي لحدكي قرير ريتوبيا أو نن لغوسو جبجبي غوين أيما غوين كاسو كمدين دار ديرتو هودا هذا دبي يولي إسلام كان لحسوق جرين بشوي كنا هكذا لبحسوقي دك هكذا لبحسوقي وأنت سالك كسو قادن كرنا دكي مقع يوم موس كفلها بوشدي كاسو كمدين عمر عيد الشبع محمود علي بكر دي دول يوكو كلتو فرد وعيد أنا الحسين جوين كاكاي بوشوين كنا لبع سوقي جري واحد كلو كميدا مويالي ملكامري قلجة نقل تلاقو أي مولي جوين كالتو سلم مدرحين لكي سروحا حسوسا كرنا إن وقتي جومو كنيات يداني الآرمي أوجري حسو جرد يكفسي انتبه حقا يقول كاين نفدين لباتوين كاس بودان وحاي سببين إن بوشوين كنو دورجر أيقوم بركعين ودام الدرسكا سلطان كشخص ليسو وأنا متعلم عودين تسلم كروح كي يقانا سدوا كلوا نتجا نقول سعدا أو سمير بدن وحاوليه يجعلنا ذاك ما كلا جعل برشة جرا ما كلا جعل برشة وقامل اليوم شخص ليسو وسمري بقناة سياسة أهم مع هذول العادات بدن بزيت وكربط بالسمن يدلقات انتبه يقول كذا زوربينه وقت اللي صدق الكيكية كما كوبير مركي وكبع سدي تلسكي درجة وكبير
dhaqdhaqaaqa jabhadda xoreynta soomaaliya abo la dhihi jiray weliba mar waxaa uu noqday xogeeyihii jabhadda xoreynta soomaaliya abo xogeeyihii guud ee jabhadda xoreynta soomaaliya abo markii uu dalka dib ugu soo laabtay isla markaana ka badbaaday mu'aamarad mar kale loo sameeyey in lagu dilo waxa uu la jaan qaaday isbeddel dimuqraadiyadeed etoobiya markii ugu horreysay ka hana qaaday sanadku markuu ahaa 1991 isbeddelkaas oo ku yimid mirihii halgankii dheera ee loo soo maray sida aabihiisa iyo walaalihiisa oo kale walaalkiisa oo kaleeto waxa uu leeyahay gole odayaal oo qaarkood ay la shaqayn jireen aabihiisa iyo wiilkiisa dhinacii dhaqanka suldaanka ayaa u dhaafay isaga ayaa dul maray oo waxaan ku darayaa dardaarankayga uu gaaban yahay bulshadii garre waxaan ugu dardaarmaynaa mustaqbalka in la dhowro midnimadii garre in dib loo habeeyo dhaqankii garre iyadoo la iswaafajinayo diinteenna iyo dhaqankeenna in la qoro taariikhdii garre in la bedelo dhaqankii hore ee xulxul haddii uu jiro in la qadariyo oo la dhowro qoomiyadaha iyo qabaa'ilada deriska iyo guud ahaanba intaas ayaan kusoo koobayaa dhageysi